kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamij wareedkeena qodobada aad warkeena ku daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona cali yara cali oo cabsi xoog leh wajahaya kadib markii uu soo baxay war sheegaya in kursigiisa loo xiray xildhibaan Mahasalaad. Imaaraadka Carabta oo amar hor leh duldhigay Soomaaliya waxa uu amarkaasi ku qotamay ayaad muuqaalkan ku daawan doontaan. Cabdi Ilaygi mar xukumayay dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo diiday in la maxkamadeeyo sababta uu cuskaday ayaan muuqaalkan idinkugu soo gudbin doonaa. wararka Soomaalida ka baxsan ee aad ku daawan doontaan warkeenana waxaa qayb ka noqon doona sarkaal Mareykan ah oo shaaciyay xilliga Ruushka uu weerari doono Ukraine. mar kale kulanti wanaagsan daawade haddii ay tahay marka ay kugu horeysay aad soo booqato tubta wararka waxaanu ka codsanaynaa inaad subscribe saarto, share garayso, like garayso muuqaalkan lana wadaagto saaxiibadaada. mahadsanid. aan ku horeyna ee Cali Yara Cali ayaa cabsi xoog leh wajahaya xilli warar soo baxay ay sheegayaan in kursiga ay ku tartami lahaayeen isaga iyo Mahasalaad loo xiray xildhibaan Mahasalaad oo 4 sano ee lasoo dhaafay ku fadhiya sida wararku ay sheegayaan. Suldaan Mahdi Suldaan Cabdirasaaq oo kamid ah odayaasha dhaqanka ee Galmudug ayaa madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor uga digay in uu si shakhsi ah ugu xiro kursiga sumadiisu tahay Hob 147. kursigan oo deegaan doorashadiisu tahay magaalo madaxda Galmudug ee Dhuusamareeb ayaa waxaa soo baxay warar sheegaya in loo xirayo xildhibaan Mahasalaad oo ah xildhibaanka haatan ku fadhiya. waxaan rabaa xaqiiqo jirto oo runa inaan ka hadlo. kursiga sumadiisu tahay Hob 147 maamulka iyo taladiisa waxaa iska leh jufada la yiraahdo Bah-ina Xasan. markii hoos loo sii daadego jufooyinka kooban dhowr jufo ayaa iska leh. Qoorqoor wax shaqo ah kuma laha, ayuu yiri Suldaan Mahdi Suldaan Cabdirasaaq uu soo gaaray tuhunka warka sheegaya in Mahasalaad loo xiray kursigan. Suldaan Mahdi Suldaan Cabdirasaaq ayaa tilmaamay in 16 sano ee lasoo dhaafay ay kursigaasi isku bedelayeen qoyska reer Maxamuud Salaad Tarabi iyo Mahad Maxamed Salaad oo wiil iyo adeerkii ah sida uu sheegay suldaanka. kursiga Hob 147 mar waxaa 8 sano hayay oo ku fadhiyay Maxamuud Salaad Tarabi. muddadaasi uu joogay si kastaba ha ku joogay waa laga soo gudbay 8 sano ee xigtay. waxaan isla ognahay in 4 sano niman ganacsato ah ay boobeen, dadkii lahaana ay ka boobeen, iyadoo dadka oo dhan ay taagan yihiin oo la leeyahay ha loo tartamo ayay habeen madow la guureen. 4 sano ee xigtayna markii aan cadaado tagnay dowladii Xasan Sheekh Maxamuud iyo kooxdiisa ayaa dhaqaale iyo farsamo xoog iyo xeeladba uga qaaday kursigan Mahasalaad, ayuu yiri suldaanka. waxaana 16 sano ee lasoo dhaafay sidaasi ugu fadhiyay reer Maxamed Salaad Tarabi sida uu suldaanku ku eedeeyay. isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri suldaanka, waad ogtihiin kursigan waxa uu ka dhaxeeyaa beelaha Babaanshe, Suubiyo iyo Ayaanle. bahdaas ina Xasan la yiraahdo ayuu ka dhaxeeyaa. ceyr tala iyo tusaale ku leh ayaa jira oo xaqna u leh in uu matalo. marka kursigaas isaga oo ah ina hebel in uu u xiro Qoorqoor waa wax laga quman yahay, ayuu yiri suldaanka. Suldaan Mahdi Cabdirasaaq ayaa madaxweyne Qoorqoor uga digay in uu iska horkeeno dadka wada dhashay ee dega Galmudug isla markaana kursigan uu dhaliyo dagaalo ka dhex qarxa beelaha uu ka dhaxeeyo sida uu sheegay suldaanka. waxaan rabaa in marka hore Ilaahay laga cabsado, dadka aan fidna laga dhex abuurin. madaxweyne Qoorqoorna waxaan leeyahay ganacsataa ii timid iyo hebela kursigaasi u xiraya ama saaxiibnimo ayaan ku samaysanayaa, waxba kuma galayso dan dhaqaale ha ka dhex raadin. kursiga sumadiisu tahay Hob 147 ayuu yiri Suldaan Mahdi Suldaan Cabdirasaaq oo ka mid ah salaadiinta Galmudug. Suldaan Mahdi ayaa hoosta ka xariiqay inay sheegi doonaan magacyada ganacsatada uu sheegay in kursigaasi ay u xaglinayaan dhanka Mahasalaad haddii aysan ka waantoobin sida uu hadalka u dhigay. si kastaba ha ahaatee warbaahinta ayaa fahansan in guddiga doorashada Galmudug ay doonayaan inay ka fogaadaan wax kasta oo eedeymo uga imaan kara maamulka kursigaasi, ha yeeshee uu cadaadis ka haysto dhanka madaxtooyada Galmudug, taasi oo liddi ku ah habraacyadii doorasho ee horaan lagu heshiiyey. kursigan ayaana doorashadiisa lagu qaban doonaa maalinimada Axadda ee soo aadan, iyadoona kursigan uu yahay kuraasta ugu xasaasisan ee taala magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. Cali Yara Cali ayaa waxaa la soo warinayaa in saacadihii ugu dambeeyay xaalad degdeg ah ay la soo daristay kadib markii uu maqlay warkan aan dhagihiisa u roonayn ee sheegaya in kursigii uu rajada weyn ka qabay loo xiray xildhibaan Mahasalaad, taasi oo kooxda Villa Soomaaliya ku noqon doonta dharbaaxa kulul. maalinimada Axadda ah ayaa la eegayaa sida kursigan ay ku soo idlaato natiijadiisa, iyadoona
murashaxiinta kursigaasi saacadihii ugu dambeeyay xusulduub xoog leh ay ugu jireen qof walba sidii uu u hanan lahaa kursigan. Markan haddaynu eegnana Imaaraadka Carabta ayaa amar hor leh waxa ay dul dhigeen Soomaaliya. Sheekh Xamdaan bin Zayd Al Nahyan oo ah gudoomiyaha hay'adda Bisha Cas ee Imaaraadka Carabta ayaa amray in la xoojiyo howlgallada lagu caawinayo dadka abaaruhu ay ku saameeyeen ee Soomaaliya, isagoona hadalla aan habboonayn ka yiri hay'adaha samafalka ee ka howlgala iyo madaxda Soomaalida ah ee iyagu samafalkaasi hogaamiya. Amarkan ayaa yimi kadib markii Sheekh Xamdaan uu taleefanka kula hadlay ergada hay'adda Bisha Cas ee Imaaraadka Carabta ee ku sugan Soomaaliya si ay barnaamijyo bini'aadanimo uga fuliyaan gobollada ay sida daran u saameeyeen abaaruhu. Sheekh Xamdaan bin Zayd Al Nahyan ayaa waxa uu warbixin ku saabsan xaaladda bini'aadanimo ee Soomaaliya siiyay madaxa ergada Bisha Cas ee Imaaraadka Carabta ee ku sugan Soomaaliya, Sheekh Maxamed Khamiis Al Kaabi, kaas oo sidoo kale faahfaahin ka siiyay sida howsha gargaarka Soomaaliya ay ugu socoto ilaa ay haatan. Imaaraadka Carabta wax dadaal ah kala mahari doono caawinta dadka u baahan ee Soomaaliyeed iyo sidii loo horumarin lahaa adeegyadooda iyo noloshooda, ayuu yiri. Dalka Imaaraadka Carabta ayaa ilaa hadda ah kan kaliya ee gargaar soo gaarsiiyay dadka abaartu ay ku saameysay Soomaaliya, iyada oo 2 goor ay magaalada Muqdisho yimaadeen diyaarado gargaar sida, isla markaana gargaarkaasi uu ku qotomo abaaraha baahsan ee ka jira Soomaaliya. Imaaraadka Carabta ayaa gargaar bilaabay kadib markii uu sidaasi ka codsaday ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo ka raali geliyay sidii ka baxsanayd nidaamka diblomaasiyadda ee dowladda federaalka Soomaaliya ay ula dhaqantay Imaaraadka Carabta sanadii 2018 kadib markii garoonka Muqdisho ay kula wareegeen lacag ay leedahay safaaradda Imaaraadka Carabta ee Muqdisho. Ra'iisul wasaare Roble ayaa raali gelintaas kadib tagay dalka Imaaraadka Carabta, waxaana wixii markaasi ka dambeeyay soo hagaagayay xiriirka labada dal ee walaalaha ah ee uu u dhexeeyo xiriirka taariikhiga ee ku dhisan ganacsiyada iyo danaha kale ee muwaadiniinta labada wadan. Imaaraadka Carabta ayaa qayb ka ah dalalka sida weyn u taageerayay Soomaaliya, iyadoona sanadihii ugu dambeeyay Imaaraadka Carabta Soomaaliya ay ka taageeraysay dhinacyo badan oo ay ka mid tahay caafimaadka, ganacsiga, dib u dhiska ciidamada iyo mashaariicda horumarineed ee Imaaraadku ka fulinayay qaybo ka mid ah Soomaaliya. Markan haddaynu eegnana madaxweynihii hore ee dowlad deegaanka Soomaali Galbeed Cabdi Maxamuud Cumar Cabdi Ilay ayaa diiday in mar dambe uu hortago maxkamadda gacanta ku haysa kiiskiisa dacwadaha loo haysto. Cabdi Ilay waxaa la xiran xubno kale oo Soomaali ah kuwaas oo ka hoos shaqayn jiray muddadii uu joogay xukunka. Salaasadii la soo dhaafay ee toddobaadkan ayaa looga yeeray xafiiska maxkamadda kiiskooda gacanta ku haysa, balse dhammaantood waxa ay diideen in ay maxkamadda hortagaan. Ugu dambeyntiina, la taliyaha amniga qaranka ee Mareykanka ayaa sheegay in ciidamada Ruushka ay hadda diyaar u yihiin duulaan militari oo ballaaran, halkaas oo u muuqday in Mareykanka uu ka quustay xal laga gaaro xaaladda ka taagan. Xoghayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa tilmaamay in duulaanka Ruushka uu dhici karo ka hor 20-ka bishan. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in dalkiisa uu Ukraine u diri doonin ciidamo soo badbaadiya muwaadiniinta Mareykanka haddii uu Ruushka halkaasi ku qaado duulaan degdeg ah. Dalal badan ayaa ugu baaqay muwaadiniintooda in ay isaga soo tagaan Ukraine, waxaana ka mid ah dalalkaasi Ingiriiska, Canada, Netherland, Latvia, Japan iyo Kuuriyada Koonfureed. Jimcihii toddobaadkan, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa kulan qaab muuqaal ah waxa uu la yeeshay hogaamiyaasha gaashaanbuurta NATO, waxa ayna isla garteen in cunaqabatayn dhaqaale oo baahsan lala beegsado Ruushka haddii uu weerar degdeg ah ku qaado Ukraine. Dhanka kale, Mareykanka ayaa sheegay in 3,000 oo ciidamo dheeraad ah uu u diri doono dalka Poland, kuwaas oo lagu wado inay halkaa gaaraan toddobaadka soo socda. Kama dagaalami doonaan Ukraine, balse waxa ay daafici doonaan dalka aan xulufada nahay ee Poland, ayuu yiri madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo hogaamiyaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa wada hadal maanta qadka taleefanka ku yeelan doono, iyagoona ugu dambeyn wada hadal dhinaca taleefanka ah si wada jira ula yeelan doono madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Xukuumadda Moscow ayaa dalka Belarus ka bilowday dhoolatus militari oo ballaaran, iyada oo Ukraine ku eedeysay Ruushka
in uu daandaasin ku wado. Guud ahaan warkii aad ka daawanayseen tubta wararka oo annaga intaa saaxiibayaal, haddii ay tahay marka ay kugu horeysay aad soo booqato tubta wararka, waxaanu ka codsanaynaa inaad subscribe saarto, share garayso muuqaalkan, like-na aad saarto, lana wadaagto saaxiibadaada. Mahadsanid.